السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la dhahaa hana. maanta waxaa ka hadlaynaa hadduu ilaahay idmo jimicsiga qiimuhu leeyahay, sababtoo last time waxaa ka hadalnay cuntada oo caafimaadka la cunaayo. So jimicsiga qiimihiisa waxay tahay maxaa la dhahaa inaan la suubi karo tartiib nus saac camal ku bilaawdid, ka bacdina aad maxaa la dhahaa waqtiga hal saac ka dhigatid. sababtoo jimicsi wuxuu u fiican yahay inuu murqaha dhisaayo, intana wuxuu usii fiican yahay maxaa la dhahaa inuu dadka maxaa la dhahaa uu caateynayo, cayil kastoo uu ka dhimaayo. waxyaalo badan uu jimicsi u fiican yahay. wuxuu u fiican yahay wadnaha xidido badana ku xiran, xididadaasaytu xoojina. wuxuu maxaa la dhahaa jimicsi wuxuu usii fiican yahay xataa maxaa la dhahaa dhiigu ka shaqeysiina. wuxuu u fiican yahay maskaxda, ma fahante, waxaan la koobi karin anaga noogu fiican yahay. So insha allah inaan noqono dad oo jimicsigooda iyo cuntadooda iyo wuxooda isku wadi karo, oo ilmahoodana maxaa la dhahaa oo la baro. ilmaheena inaan barna waaye inay faa'iidada jimicsi leeyahay. ilmaha guriga lagu haynaayo oo maxaa la dhahaa telefishin la iska fiirsanayo oo game cayaarayo, wax qiimo ugu fadhiso. ilmaha intii banaanka loo wada waayo oo ayaga muxuu ahay ay ku cayaaraan, oo haddii oo waalidka banaanka u wadi karin maxaa la dhahaa activity waxaasoo kale wax la dhaho, oo adeeg kasoo qaad haddii oo football camal oo kale iyo soccerka iyo waxaasoo kale iyo ilmaha la geliyo. haddii la geliyo soo jimicsigooda waxoodii iyo way qabaan mogta, saaxiibtimanooda waxoodii waa baranooyaan, soosha ahaan waxaas waa baranooyaan. maxaa la dhahaa haddii loo fiiriyo maxaa la dhahaa jimicsiga oo dhahdid okay waqtigaana ugu talagalay, waqtigaas saytan may dhaafaayo, waxay noqonaya marka habit wax la dhaho dan maxaa la dhahaa waa wade, waxaa ka caajisaysa male. kabacdina u baranay korka u baranayo, adaan u baahnana sidii odigoo ooman oo kale, ma fahanti, sidii bii ahaana u raadinay oda korka u baahnaanayo. waxaaga dhanay noqoni kasoo qaad haddii aad dareentid inaad qabtid maxaa la dhahaa xoog ay yeelatay, waxyaalaha elkoo hore xanuun kugu hay xanuun kuguma hayo, sababto korka jirka ku dhismaday. so jirka hadduu ku dhismaday kooga hore ma dareemaysa faa'iidadiisa, ma fahanti, laakiin markaad waqti wadid faa'iidadiisa dareemi. laakiin hadeer aniga wax bilaabay jimicsi hadeer bilaabay, laakiin waxaan u baahanahay hadeer degdeg inaan ku arko wax isbedelay ma noqonayso, sababtoo korka kula dagaaltama. korka wuxuu kula dagaaltama waxay tahay waxaanan uusan aqoonin aa ku bilaawday. so inuu ku wadid waa intii uu korka ka barto. insha allah maxaa la dhahaa waa ku dadaali doonaa inaan cuntadeynana oo caafimaadkanana aan cunno, jimicsina aan ku darno. labadaas la isku wado muhiim waay, in la kala dhaadhaafo maaha. hadii kasoo qaad jimicsile maanta o dhan ku jiro, cuntada rabana waa cunaa, wax ma iska kaa dhimin. so insha allah waxaan rajeynaa, aniga xataa nolosheeda xataa uu rajeynaa. waxaa idiin sheegay aniga xataa aan ka qiimeysan karo oo raaci karo insha allah, oona ka faa'iideysan doono cashirkaaneyto. jasaakallah kheer, aada u mahadsantihiin oo maanta iga soo qayb gasheen. okay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.